hogaamiyaasha Soomaalida ayaa mar kale caasimadda Muqdisho waxa ay ku yeelanayaan shir lagu gorfeynayo xalka isfahamwaaga daba dheeraaday ee ka taagan qabsoomidda doorashooyinka loo dhan yahay kuna dhaca waqtigooda. Kulankan waxaa qaban qaabiyay diblomaasiyiin shisheeye. wadahadalada ayaa ku qabsoomaya teendhada Afisyooni oo ah goobtii lagu doortay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana amniga xaruntaasi sugaya ciidamada AMISOM oo la doorbiday markii madaxda maamul goboleedyada ay dalbadeen sidaasi. dabcan madaxda ka qaybgalaysa shirka ayaa wata ajendayaal kala duwan, hase haatee beesha caalamka oo damaanad qaadayaal ka ah fulinta natiijada kulanka ayaa la filayaa in madaxda ku riixdo dhaqangelinta is-afgaradkaas. inta la ogyahay qodobada hareyn doona shirka ayaa kala ah 2 qodob oo ah in la saxiixo soo jeedintii guddiga farsamo ee ku shiray Baydhabo oo ay gadaal ka riixayso madaxtooyada Soomaaliya oo diidan in la furo heshiis isla markaana laga wada xaajoodo arrimo ay ka mid tahay amniga codeynta ama goobta lagu codeynayo, balse darafka kale oo riixaya in la furo heshiiska ayaa doonaya in lagu daro qodobo damaanad qaadaya amniga doorashooyinka, in madaxweynuhu saxiixo warqad cadeynaysa in waqtigu ka dhacay lana laalo wixii go'aano ah ee masiiri ah oo fulinta iyo sharci dejintu ansixiyeen kadib dhamaadka muddaxileedkooda dastuuriga ahaa. maadaama ay kala aragti duwan yihiin labada dhinac, waxaa la filayaa in dooduhu noqon doonaan kuwo aad u adag isla markaana waqti badan qaata. beesha caalamka oo daha gadaashiisa ka abaabulaysa wadahadalada bilaaban doona ugu yaraan dhamaadka toddobaadkan ama bilowga toddobaadka soo aadan ayaa doorkeeda ay ku leedahay shirkaasi oosan weli si furan u shaacsanayn, waxaana tallaabadaasi ay u qaadeen si aan loogu arkin inay ku xadgudbayaan madax bannaanida Soomaaliya.